bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaasha qiimaha qariinta naga mudaro waxaan ku suganahay bartamaha kala badhisa degmada Kalabeed oo hilaadii 30 kilomitir dhanka koonfureed kaga beega magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaan goor habeenina aan kula kulmay Cabdishakuur oo mootadiisa wata dabcan isaga inoo sharxi doona bal meesha uu soo socdaalayo iyo waqtiga uu bilaabay mootada inuu ka haysto Cabdishakuur ku soo dhawaaf Nugaal Media bismillaahir rahmaanir rahiim mootada wata aan ku shaqeeyaa ana waye xagee soo taa tursankas xagee ka timi hadda Laascaanood marka wax maalin walba aad ka shaqaysid baayo aad maalin walba qaadimayso waa wiigiyo kale maalin walba waayahay magaalada hadda sheegto waa magaalada hadda socotay tursankas hay Laascaanood intee jiraan waqtiga waa 92 kilomitir hay intee kala socota adigu waa 3 saac waayahay dabcan mootada wataa daaqada ma laha albaab ma laha wax kasta oo dhici karaan daanyaraha meelaha jira bahalla dhici karta inay joogaan bal ka waran sidee baa kugu suurtoodo inaad mootada ku soo xirayso caadi baa sida ma ku shaqeyn jiray wiligeed waaya caanaha mooyaan wax kale maxaad qaataa oo kale caanaha ku shaqeeyaa on bal qaataa okay waaya shaqadan gormad bilowday waqtiga gormad bilowday waa 8 sano ku shaqeynaa 8 sano waaye inta aad ku jirtay caqabado badan dhulka ka dhacayo jira dabcan maxaa kula yaabanayo carabaabi kartaa warbaahinta madaxa banaanay Nugaal Media aad u sheegi kartaa intii aad mootada waday ana hadda la kulmay ma jiraan waaye waxa xasuusantahay ma jiraan may waaye daawadeel oo u jeedaan waa xilli habeen weey waa mootada yare kooban dabcan caanaha oo u jeedaan dambe xawaaye kirtaamada hadii la ku roon yahay wada jeedaan waa xaalad adag weey runtii dabcan aniga waa ku faraxsanahay waa u istaagay waa sheekaysanay kadib waxaan ka codsaday inaan interview yar ka qaado dabcan interviewgaaga bal bulshada ma badhin karaa caadi weey runtii waxaan la mid ahay ama socod ku heliya bahda Nugaal Media waan ka soo raacay degmada Kalabeed anigoo ka socda Laascaanood nasiib wanaag halkan waxaan kula kulmay Master Cabdishakuur oo ka kooyay Bardaale sida halkan ka muuqata anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Sool ganacsatada kulay ka mid ahay waxa aad ii cajab gelisay ninkan qaabku u shaqeynayo maadaama uu mootadiisa uu ku wato ilaa iyo 15 jirkaan meelaha uu caana ku soo qaadayo runtii dhiirigelin weyn bay tahay shakhsiyan in arko qof hal abuur noocan ah ku soo kordhiyay mandaqada aan ku sugannahay ee gobolka Sool iyo nawaaxigeeda waan baraarujinaya runtii waxaan ilo qiiro geliyay ama aan u dareensanahay xilligu u guuray inuu xamaalo oo shaqadiisa soo qabto nasiib wanaag wuxuu aad iyo aad uga nasiib badan yahay boqolaal qof oo caafimaad qaba oo aan shaqaysanayn oo guryahooda iska jiifa ama qof kale wax ka sugaya noloshu iyadaas ka barta Cabdishakuur runtii waan ku dhiirigelinayaa inuu shaqadan sii wado ilaa intuu heer ka gaari doono insha Allah aniguna waxaan reer Laascaanood lanyaal badan oo Bardaale ka kooyo Laascaanood roogana saaxiib aan nahay ma sha Allah ya marka afmeemeyga xoogaa baan ka garanayaa marka ma sha Allah saaxiib oo kugu ilaahay ganacsiga ku barakeeyo bahda Nugaalna waxaan leeyahay Cabdishakuur waxaan ka qoranaa referencegeena insha Allah credit fiican iyo taakuleen fiican oo inaga mudnaan doona hadii la haydno sida cid kula kulantidan oo kale oo ama gaadiid kale maadaama wadada gaadiidka martid ma jiraan may ismeen arag cid kale may oo markii ugu horeysay aad qof saas kale oo kulantaan ama ku soo daga ku horeysay ma sha Allah waa runtii anagana farxad gaar ah noo tahay mustaqbal ifaya insha Allah taala ku rajaynaya haddana waxaan daawanaa sida mootada u dhaqaajinay insha Allah dhaqaaji haye tan ما شاء الله وجدان داودين وجدان واسعتي اوريدي وجدان وكا وموتدا كليه وي طبعا وجدان انا سفر سلام ان شاء الله انا غاريغا waa kan اساس نوبل ان شاء الله جود يدوب على سيدي ما شاء الله